Gariiqan Shamaal Mandela waxaa jirtay xukun ka soo baxay maxkamadda gobolka Maroodijeex ee ku riday wiil dhalinyaro lagu magacaabo Bilaal Bilshaawi bal faahfaahin naga sii. qaraarkaas dacwadaasi marka muddo socotay waxa inakaas ku eedeysnaan wuxuu ahaa koob shaah oo la yiri calanka Soomaaliya ayuu ku sameeyay runtii horta arintaas baan saxayaa inaka ma aha cid wax ku sameysay calanka amba koob shaah wax ku sameysay inaka yiri meherada Jumeera ayuu tagay waxaanu doonayay dhalinyarta reer Soomaaliland qaar kamid ah waliba reer Hargeysa ayaa kaxeeyay oo casho geeyeen markii hotelka tagay dhalinyar badan ayaa garatay oo ku soo yaacay waxa dhamaanteen waa madaxweyne TikTok aad baa loo soo dhaweeyay marka inaan kamid ah namadii kusheenada ku jiray ayaa shaaha sameeyay wuxuu isagu dalbaday iyo wuxuu soo ku talagalay midna ma ahayn dhinaca kale waxa lagu soo yeeday inankaasi inuu qarannimada Soomaaliland wiiqayay iyo inuu boorinayay in sharciga laga hor yimaado laba eedood oo isa saaran bay haayeen muddo dacwadu socotay hase yeeshee saaka ayay soo gabagabowday waxaana maxkamaddu qaraarisay in 48 saacadood gudahood lagaga saaro dalka wax xukun oo kale ku dhacayna ma jiro saas ba xorriyadiisa loogu celiyay laakiin halkii ahayd suuqa in lagu siday xorriyadiisa taamil loo celiyo ay maxkamaddu waxay qaraarisay 48 saacadood in immigration-ku kaga saaro magaalada amba Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan kulli labadeenanba laba nin oo Muqdisho u dhashay bay ahaayeen labadaba isku xukun bay qaadatay maxkamaddu may kala saarin labadaba waxay amartay in 48 saacadood lagaga saaro kiiga Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana lagu celiyo Soomaaliya